I've done this in 30 years guriga hooyada aad that was so unprofessional laakiin markii ciyaarta dhimaatay macalinka oo waxaa dhammaan hadda khalad fahantay igaraalina khoof saas ma kabadin laakiin banooni hadaa hubin ma tirsan karo and he took it well wallahi laakiin after that I don't know waxa after that much everything changed like markaa wax dhahay banooni ma hubin ma qaadi kari ma aha so was that Macalin Francis hadale magaciisa macalinka uu yuu ahaa macalinka I think France France okay Macalin Francis so do you think markaa khaladkaas markuu dhacay oo markaas that's why markaa positionkaaga markaa uu bedelmay maya wallahi ka hor inay haysteen online waxay ku dheelayaan sababtoo ah the players told me like player who coming from Somali Premier League which is center back aba ciyaari lahay magaciisa ma aqaan laakiin he plays in a big team in Somalia sida la ii sheegay laakiin I don't know wallahi صح so adiga waxa aragtay fair chance ba ma lagu siinay adiga ciyaartooyda qurbaha may chance oo aan chance one emanal siin wallahi the pitch aku ciyaarin in training was very very bad mal ciyaari karin laakiin I'm not complaining about that pitch waxa qalad waa in laga complain gareeyo laakiin se maxaa dhahaa chance iyo oo fiican sababtoo ah I feel like kooxday ku dheel lahaayeen already way haysteen صح macalinka markaa he picked his teamkiisa 23ga adigana waa ku dhex jirtay samaha waa ku dhex jiray he took wuxuu kooxda sameeyey the day before the game صح so aniga 23gas waa ku jira laakiin waxaa jira ciyaartooy kale oo also Europe iyo America laga keenay oo 23gas ka soo galinba صح okay yeah I was happy to be both of 23gas like صح so marka gooma loo sheegay marka da ma ciyaaraysa benchka fadhida benchka ma fadhiya ciyaarta hore ciyaarta hore wax dhan ma lii sheegin oo waxa waaye ciyaarta hore markay bilaabanaysay aniga lugaha waa bedlay waxa waaye iskaashadii dharkii dhan waa gashtay so directly after ano dharka gashanayo waa la imaaday waxaa la dhahay you are not in the match squad kor aad in the stand gooma loo sheegay ciyaarta waa using the warm up ka before warm up like qolka markaa soo galnay maxaa la dhahaa ciyaartooyda dhan laakiin saddexda qolkaas la galnay waxa waaye tactics macalinka uu ka hadlayo malena markaa qolka imaanay dharka bedeshtaan la dhahay dharka anaga markaa bedelanaynay anoo dharka bedelnay waxa la dhahay ma ku jirtid ciyaarta kor waa inaa aadid hayaa kuu sheegay macalin Francis mise macalin Jabshe macalin Francis haye okay marka hada dareenkaaga markaa because qof oo ciyaar isku diyaarinaya yeah well I was shocked I was disappointed but I didn't want to disturb my team wallahi waa kooxday inaa qarankeega inaa dhimaradin oo waxa waaye I took it well like from my point of view waa dharkeyga waa qaatay waa baxay koray marka koray kadibna maxaa la dhahaa national anthem markii la daaray oo dadka dhan istaageen wallahi I'm not lying wallahi I cried because I knew I was good enough to play like then I didn't play like in dib malaha insha Allah hadda next time hadda chance kale insha Allah waa helaya isdhaa marka waa iska aamus marka waa fadhiistay صح so dareenkaaga marka when you said national anthem marka maqashay dareen weyn baa ku soo kacay والله بالله شايد والله والوالدين كنا عيارتي كوري كانت أيضا إني أمسون استدعين لكن والله هذه حوالي أخير هذا صح عيارتي كواد ما كان قال لي what was the tactic plan كما حد عيارتي كواد والله بالله كان so crazy والله أفكر احتراك شيء مرة لكن أو وحول بوحة هذا فاتحة إلهي يقول هنا سيو قرونك قالنا iyo macallimiin oo saddexda macallin buu isku khaylinaya maanta kan markuu wax sheegay kan kala khaylinaya kan markuu sheegay kan kala khaylinaya so unprofessional wallahi laakiin maxaa lahaa tactical waxaan ilaahay faataxa noo la akhriyo garoonka aad galno ilaaha guul hana geed ana waxaas marka ilaahay warta run waa guul hana siiyo faataxana wax fiican in la akhriyo laakiin